guriga ay degan yihiin ee ka mid ka ah xaafadaha ku teedsan dabka ee dhinaca degmada Holwadaag ee magaalada Muqdisho ayuu sheekha u soo kiciyay gabar ka mid ah reerkaasi oo xanuunsaneed oo saakay la keenay xarunta cilaajka Daarul Taqwa xilli ay ka soo kor hadleen sixiro jini loo soo adeegsaday kuwaasi oo sheegay inay guriga ku aaseen sixir inta aan loo soo dhaadhicin gudaha guriga ayaa la soo marsiiyay halka ay sixirka ku sheegtay ee guriga banaankiisa gurigan oo qorax ujeed ah ayaa dhinaca midig ee guriga looga aasay maro ay la dhiban yihiin dad badan oo guriga ka tirsan balse inta aan dadkaasi u gudagelin oo gabadha abtigeeda kow ka yahay aan aragno sida looga soo saarayo maradaasi guriga dhinaciisa reerkan ku dhibaataysan ugu bobsi waqti maahay bobsi haduu ku jiraa xagee wad bobsi soo bixi wariya aawad kale maxaa loogu talagalay ina ku dhibaataysaan yaa ku dhibaateynaysaan cidda dhan aa ku dhibaateynaysaan goormaa geliseen meeshaan milooyin ka hor jinni mise insa usoo dhiibteen waryaa wax meesha geli jin haween ismaalaa geliseen haweenaa geliseen soo qaad maradaa kor soo istaag qaad gacantaad ku soo qaad waryaa qaad baan ku qaad maradaasi la soo bixiyay ayaa ku naafoobay abtigeeda oo iminka lug laga naafeeyay ama lugtii u shaqeyn weyday aragiisana gebi ahaan lagu beeliyay isla markaana uu ka dhigay sixirkani fadhiid mardama nigu arkaa yaa waryaa maxaa kaloo dhib u geystay reerka isha waryaa bobsi abtiga bobsi waa hee maxaa ku samaysay abtiga maxaa ku samayseen baa ku yidhi lugaa ka horyaamiseen ma jiraa lugaa ka horyaamiseen indhahana waa ka rideen maxaa kaloo dhib u geysteen ii sheegay jina u adeegsateen maxaa reerka masaakiinta ku dhibaysaa maxaa u dhibaysaan baa ku yidhi maanta kadib reerka ma dhibaysaan dib damba nigu arkaa sixir damba keenaysaan ha raa gacanta bixda bobsi wiilka la dhashay gabadha ayaa xaqiijiyay inay jirto arinta ah lugta iyo indhahaba laga haleelay abtiga balse aysan u malaynaynin inuu ahaa sixir waxa sidaasi u galay abtigiisa odaga abtiga ah suu yahay asagana odaga abti hadda kulay quraan laga hayaa indhaha waa run ha lugaha laga ka sheeganaysa reerka intiisa kala mas'uuliyiin wallahi horta hadda quraan baan daarnaa oo koroonahay sidii hore waa la dhaamaa laakiin awal hurdo lama saxan jirin guri lama saxan jirin oo hadii la saxdana saas iyo dhibaato ahayd reerka dagaal iyo sufaan darre iyo mid ku dhex jirtay dhaxdooda amal bay noo ahayd taas ugu dambeyntii Sheekh Cali Cabdiraxmaan Sheekh Cali Mukulle maamulaha cilaajka Daarul Taqwa ayaa u duceeyay abtiga xanuunsan oo meesha kaliya ee sixirka loo soo marsiiyay ahayd gabadhiisa Allah shaafiyo Allah caafiyo wad arkaysan dhibaatada maanta taagan ee saaxirinta dhibaatada aafaadka maanta ay ku hayaan ummadda islaamka reer ha dhihin ganacsatada ha dhihin kuwa maganaysa dad isqaba ha dhihin kuwa isdhala ha dhihin dhibaatadaas maanta boqolkiiba 99 dhibkaas ay maanta ku hayaan ummadda ilaahayga boqorka waxaan weydiisanaynaa odaga xanuunsan ilaahay caafiyo reerka wax dhibayna ilaahay ka soo saaro qof walba muslim ahow kaliibkan arkana waxaan iga codsanayaa inaad ducaysaan reerkan loo ducaysaan inta muslimna saa u dhibaataysanna inuu ilaahay ka soo saaro sixirka loo maleegay loo aasay lagu dhibaateynayo allaha casiiska ah waaxidka ah waxaan u weydiinayaa inuu ilaahay buriyo وبري إله بريو قفل بمسلم دبعته دبك الله هاي الله كتر قاضو إيمان كبا يراده الله كعبسي كبا يراده دبعته وحنا ما تودن ودار كيسان الله شافيه ومحمد يولك أنت عن مقال كلمة كل مدوننا أصحابي نبت قليل.